الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maamulka degmada hodan oo isku duuban iyo haweenkiisa quruxda badan iyo dhalinyarada odayaasha halkan jooga ee kala duwan ee ugu horeeyo gudoomiyaha Hormuud Foundation iyo Salaam gudoomiyaha jaamacadda Balasma gudoomiyaha shirkadda Sanchat iyo madaxda la socota injineerka ganacsadaha naga iyo ganacsatada kalaba iyo madaxda kala duwan ee halkan aanan hadda ku soo koobi karin kuwa luuqa ku jira xataa ayagana dhammaantiin salaamu calaykum salaamtii salaamkaan ku salaam runtii farxaday noo taa maanta inaan halkan taaganahay inaan wadadan dhagax dhigayno inaan saaka aniga saxaafadaanu inta israacnay aan soo kormeernay shaqooyinka degmada ka socda qaarna ay noo dhiman yihiin munaasabadaana aan uga hadli doono laba dhagax dhig oo wadadan muhiimka ah isgoyskan afarta wada ah oo afar meelood uu kala aado midna xagga aado midna halkaas aado midna halka bari iyo koonfur waqooyi iyo galbeed inta uu aado laamigan waana laami runtii aad muhiim u ah sidaasoo kale runtii meesha aan u soconaa waxay tahay dhiirigelinta iyo garab istaagga aan kala joogsi lahayn aan ka haysano gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf madaalo oo ah nin u samaysan inuu horumarka gobolkan ka qayb qaato ayaan dhiirigelin ka haysanaa sidaasoo kale iskama duuli karna iskama soconna waxaan dhiirigelin ka haysanaa dadka ay ugu horeeyaan dadka haldoorka halkan jooga ganacsatada ee degmada hodan degan ayaan waxaan ka haysanaa dhiirigelin aan ku shaqayn sidaa la ajligeed ayay noogu qurux badato inaan shaqada aan hayno ay noo qurux badato runtii haddaan idhaa maanta waxaa socda ayaan ka sheekaynaynaa annaga dhagax dhigna waa iska daynay ayaantan xarijarna waa iska daynay sababta hal munaasabadaan rabnaa inaan ka dhiganno hadda waxaa jira dhagax dhig kale oo wadda interlogo ayaduna aad muhiim u ah munaasabadana ayaduna waa hadli doonaa way sii arki doonaan wariyaasha sidaasoo kale waxay sii arki doonaan waddo kale oo waddooyin kale oo laamiyaal iyo interlogyo ah almuhiim shaqadaas ay hayaan shacabka reer hodan ee isku duuban iyo ganacsatadooda iyo maamulkooda caqabada ayaa jirta maxay tahay caqabadaas caqabad dhammaanteen nala gudboonayaana haysata waxaan nagu soo aanan weligeen waxaanan arag ah oo na haysta dad wata dadkii godgodada ahaa oo waagii hore dadka malaha dadka meydka iyo magaalada marka qaraxyadu ku badnaayeen ka duugi jiray ayaa waddooyinka u soo wareegay inay qufaan habeenkii 9 saaca la imaanaa jid aad samaydo interlog subaxii u diyaariday waxaad arkaysaa isagoo jeexan laami aad rabto oo la rabo in laamigaas muhiimka ah ayaad waxaad arkaysaa 9 saaca habeenimo ayadoo la jaro waxaan rabaa maanta inaan hal codsi dhiibo haddii la rabo in waddo muhiima la jaro way dhici kartaa in baahidii bulshada ka timaado way jiraan kuwo warqadahooda la soo gudbiyo dadkii dhisay waddadaas oo guddoomiyaha ka ay soo gudbiyeen shirkaddii u qiimeyn lahayd ay soo codsato 3 bilood ag yaalla haddaan manfac rabana haddaan raba aan ka heli karin laakiin laxajeclada iga haysa waddooyinka ayaana u samayn karin waxaan rabaa maanta hortiin inaad markhaati ka ahaataan nimankaas faasaska wata oo garweynka wata oo badeelada wata oo nimanka aan wax magaratada ah oo shirkadaha sheegana ay hogaaminayaan qofkii arka inuu kula dhego badeelka oo yidhaha jooji oo nimankaas ugu horrayn aan meel iska saarno waa wixii la rabo oon maamul ahaan annagoo isku duuban ayaan fulinaynaa wixii bulshada muhiimka waa sababta biyaha waa loo baahan yahay korontada waa loo baahan yahay internetkana waa loo baahan yahay waxaana waddadan ka codsada ganacsada diraac iyo raggiisaba iyo shirkadda dhisaysa in loo sii sameeyo meelihii wax mari lahaayeen xataa waa ka fakeraynaa hadda ka bacdi laakiin inuu qofku intuu iska yimaado uu iska jeexo ay dhibaato ku tahay dhibaatada kale waxay tahay markaan waddadii samaynay niyijabka nahaya waxay tahay in waddadii dadku ay lacagtaas ku dhiibeen shirkad nadaafadeedna gobolka banaadir uu soo siiyey shirkaddiina aysan ka shaqaynayn ummaddiina lacag laga qaado ayadana waxaan rabnaa ceebtooda ma asturayno shirkadda nadaafadda la siiyey gobolka banaadir uu soo siiyey lagu ogyahay waa inay nadaafadda ka shaqaysaa haddii kale reer hodan waa isku tushanayaan ma sugi karaan ninaan u soo socon oon qashinka ka qaadayn in la yidhaahdo suga ninkaas hadda maba dhici kartaba sababta laamiyadaanu ma noolaan karaan haddii biyo lagu daadinayo anugu gaari lagu dhaqo waa diiday hodan waxaan diiday qof inuu biyo ku furo waa diiday qofka ugu fiican waa inuu noo dhaqaa waa diidnay qofkii arkaa gacantaa ka qabto anug baabuur lagu dhaqaana ma ogolin nin baabuur deyn kusoo qaatoo raba inuu qashinka iyo wasaqda degmada ku sayrana waa u diidnay waxaan rabnaa
muhiimiyadda waxay leedahay waxaan rabaa saaxiibkay cabdullaahi guddoomiyaha hormuud foundation iyo salaam banki inaan u mahad celiyo dhiirigelinta qofka wax marka adigu shaqada aad aaminto inay shaqada keligaa kugu noqoto ma samay kartid dhiirigelintu waxay ka mid tahay qofka dhiirigelin ayaa la rabaa oo dadka inay dhiirigelin sameeyaan la rabaa ku dhowaad 4 laami iyo ku dhowaad 30 wado oo interloga markay kuu socoto hadda waxaa u baahan tahay inta kalena xaafadihii tartanaa ka jira maantay waxaan soo marnay 3 waaxood oo degmadu ay ka kooban tahay waxaan leenahay koobka yaa dhammaanaya annaga halhayskanaga wuxuu yahay xaafadaan u kala googoyn waxaan rabnaa 2024 inaysan jirin degmada hodan qaybta aan ugu talagalno toon baleenka aan u samaynay inay interlog iyo laami tahay waa ku dhawaaqaynaa soonaan samaynay soonahaas waxaan rabnaa interlog iyo sababta ma kala gaari karno ma dhihi karno mar walba haddii aan ka tagnana dadka naga dambeeya unbaa sii wadi doona laakiin soonaha aan ugu talagalnay intaan joogno waxaan rabnaa inaan arrintaas ka samayno sidaasoo kale waxaan u mahad celinaa Oscar oo ka hadlay environmentiga waa run qoraxdaan maanta nama hayseen waxaan samaynaynaa wado kasta oon beerno waa la qaatay jirdiimadii iyo meelihii ilmuhu ku cayaari lahaayeen guryo dhaadheera loo qaatay nin ganacsadaha imaanaya wuxuu qaadanaa meeshii dadka loogu shaqay lahaa aawo beerihii aawo meelihii xariiqdimaha ciyaalku ku cayaari lahaayeen dadka maxaabiismiya ilmuhu intay aadayaan hadda ilaahan ku dhaarshay degmadan quruxda badan intee dadka aadaa waa inaan hadda aan ganacsatada ka codsana inay beera sameeyaan oo baakinna sameeyaan sababta magaaladu waa koraysaa baakinna male guryihiina waxaa la rabaa 25 ama 30 biyaan in laga dhiso boos oo 20 lagu dhifto 20 ama 15 20 mana noqon karaan waxaan rabnaa in loo dhagal nugnaado in geedo la beero waxaan si gooni ugu baaqaa dadka jaamacadaha iskuulada isbitaalada ganacsiga kale inaysan jirin qof walba hortiisa inuu geed ku beero Oscarna wuxuu naga ballan qaaday inuu geedahaas uu ka caawi doono geedaha ugu wanaagsan waxaan rabnaa dhammaanteen walaalayaal dhammaanteen intaan haldeer maanta fursaddan aan haysano nimankan weli saxaafadda weli waxaa noo sii dhiman laamiye iyo wadooyin aan sii mari doonaa oo faan noola fara kama qodna laakiin waxaan rabnaa si waxaasu noogu hagaagaan in qayb laga noqdo nadaafadda maalin kasta oo khamiis halkaana noogu dhawaaqaa muwaadinow maamulow degmada lama yimaado waxaan ballan qaadnay guddoomiye kasta waaxdiisa laantiisa tabeelihiisa inuu ka shaqeeyo xaaqinuu qaadanaa maalinkaas bulshada inteeda kale loo adeegaa waxaa la samaynaa qof walba oo ka mida degan degmada hodan xaaqinkaaga qaado badeelkaaga qaado gaari gacankaaga qaado askariyo waddada ka qaad qashinka nin askariyo mushaar qaataa wuxuu ku leeyahay sidee aniga qashin u xaaqa mushaarkiiaba qaataa sidee adigu qaada askarta waa ku dhiirigelinaa ciidamada ammaanka inay qayb ka noqdaan sidaasoo kale ciidamada dowladda hoosaleeda oo jiingada la garaaca keliya 4 kor taagan waxaa la rabaa inay ganaaxaan kuwa biyaha iyo nadaafad darrada ku wada booliisku sidaasoo kale inay qayb ka noqdaan la rabaa wiilasha baabuurta ku dhaqaaya laamiyada isku soo wada duub dhammaantiin ajar iyo xasanaad allah idin siiyo allah idin barakeeyo waddadaanna way noo furan tahay shaqadeedu way noo bilaabanee maanta laga bilaabo waxaa noo ballana waddadan keliya maa inaan waddo dhisayno laakiin laamigan wuxuu wataa 3 maado wuxuu wataa laamigii in la saaro mashubiyadiga in la saaro solarkiisina in la saaro saddexdiiba uu isku wataa nadaafadiina waxaa la rabaa guddoomiyaha aan ku adkaynaa guddoomiyaha laantaan iyo waaxdaanba inay ka shaqeeyaan meel kasta oo la sameeyo ganacsatada jeebkooda ka bixiyey ee ayagu gartay ee annagu ayagaa shirkadda la soo heshiiyey haddaan maamulka degmada hodanna annaga waxba noogama jiraan qof waddo dhisanayo mana aanaan dhisnayn haddaan wax ka raadinayno shirkaddii la soo heshiiyeen way ku qanceen 75 waa soo shirnay halka xunaa soo haray ma qarinayno dhagaxaan noo yaalla nin New York jiifa ama jiifa magaalo kale ee muqdisho ahayn ee gurigiisa 10 kun ugu kiraysan yahay ee raba guri inuu kirada ka qaato waddaduna ay jajabnaato waa diinna haddaadan ku faraxsanayn in magaaladaanu qabuurihi ay ka soo noqoto amnigeeda oo 100% yahay oo dowlad siyaasad degan oo madaxweynaheedii aad aragteen heerar kala duwan u shaqeynaya oo maanta joogo haddaadan raalli ku ahayn gurigan quruxda badan oo kuu kiraysan lacagta dadkii 95 ay bixiyeen keligaa cid kuu daahaysa male dhagaxaan dejinaynaa waa ku dejinaynaa sababta magaaladanadu qabuur ma noqon karto magaaladanadu waa town waa centerkii magaalada qof walbana wuu ogyahay maanta markuu laamiga dhiso diraac marqaati oo iga guriga 2000 lagu kirinayo inuu 10 ku kiraysan sababta laamigaasaana sabab u ah soo dhawaada dhammaanteen gacnaha aan isqabsanno aan ka shaqayno waxa aan sheegayno inaysan naga noqon annaga ficil aan baan ka shaqaynaa itusoo itaabsi aan ka shaqaynaa marka sidaa darteed waxaan idinka codsanaa ganacsatada iyo nabadoonnada
iyo haweenka iyo dadka halkan jooga dhammaanteen walaalayaal nadaafadda dhammaan nadaafadda aniga waxay ii tahay number 1 wallaahi waa naxaa ma joogsado diirkaygu ma hoyda habeenkii haddaanan laba wado oo hodan aanan soo dhex marin haddaanan dad ka soo xirin haddaanan habeenkaas aanan meel biyo lagu shubay iyo meel qashin la dhigay aanan ka jogin amniguna ma hawaysan karo amni darrana ma imaan karto foolxumana ma imaan karto nadaafadda aan ku dadaan aad iyo aad u mahadsan